وكما أستحاجيو شخصي ugu saameynta badan social media khaasatan barta YouTube. Alhamdulillah. inta badan dadka kaliya waxay arkeen Asad Xaajiyow oo kursiga wheelchair ku fadhiya balse ma ogtahay in Asad Xaajiyow lugihiisa ku socon jiray balse uu ku waxyeeloobay qalalaasaha Soomaaliya taariikhdu markay ahayd 27 August 2012. Asad Xaajiyow isma dhiibin sida inta badan dadka markay xaaladaas kale ku dhacdo ay nolosha uga rajo dhigaan balse wuxuu noqday shakhsi dhiirigeliye u noqda dhammaan Soomaalida iyo inta wheelchair ku fadhida iyo waliba inta lixdooda lixaad qabta. Asad Xaajiyow wuxuu ka soo muuqan jiray channelka walaalkiis ee Armahana muddo kadib wuxuu furtay channel cusub balse nasiib daro muddo kadib Asad Xaajiyow channelkiisa waa laga jabsaday. Asad Xaajiyow wuxuu furtay channel kale ilaa uu ugu dambeyn ku fariistay kursiga number 1 Somali YouTuber. heerkan maanta uu Asad Xaajiyow joogo kuma soo gaarin kaliya dream amriyo balse wuxuu la yimid dadaal kaasoo uu kaga sarmaray dhammaan YouTuberska Soomaaliya